biyi markaan cabay wadnuhu aad ii garaacmay xoog baanan u neefturay maadaama aan wax badan soo lugeynahay aanan tabar darnaa marka ayaa waxaan damcay inaan garabkiisa ku tiirsado maadaama laba kursi oo isku dhow aan ku fadhiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa idin salaama qeyrta sharafta leh meel kastoo dunida dacladeeda iyo daafaheeda aad ka joogtaan waqti walba idin tahay. ugu horeyntii igula saliya xabiibkeena maxamed suubanaheena sallallahu alayhi wasallam. haddaad nagu cusub tahay subscribe na soo sii oo subscribe saara channelkeena rukumo wax badan ayaad ka faa'iideysaa si aad ula socoto qisooyinkeena faa'iida TV 18 mar walba aan soo gelino waxyaabo badan baad naga faa'iidi doontaa insha Allah. axaadiis baan soo gelinaa tixa iyo gabayaan soo gelinaa murti iyo madadaalan soo gelinaa insha Allah taala. waxaan kala soo gelinaa qisooyinkeena taxanaha. waxaan idin sheegayaa dharkan aan hadda ku labisnay ama aan hadda qabo ayaan ilaa inta aan qisada idin dhammaynahay qisadan way dheertahay ayaan qabi doonaa laakiin qayb ayaan idinku soo qori doonaa hadba qaybta ay marayso insha Allah maadaama ay dad walaalo badan ku xiran yihiin si marka adigana aad uga mid noqoto daawadayaasha iyo dhageystayaasha ku xiran channelkeena ama kanaalkeena YouTube-ka aan ku leenahay faa'iida TV 18 subscribe saar gambaleelka furo ha ku soo gaareen dadka oo horeeya noqon lagaaga sheekayn qisooyinka iyo dhacdooyinka maalin walba ka dhacaya ummadda Soomaaliyeed dhexdooda iyo dhibaatooyinka ka taagan. waa hagaag halka markay xaaladdu maraysay ayaa waxay damacday in ay garabkiisa ku tiirsato maadaama biyihii markay cabtay wadnihii uu xoog u garaacmay tabarteeduna dee qof aad u daciifa ay tahay. marka ayuu wuxuu yiri bay tiri ha isku kay tirin caadi u fariiso istoosi maxaa igu tiirsanaysaa. runtii aad ayaan usii qalbi jabay bay tiri oo waxaan sii dareemay qalbi jab kale iyo niyad xumo aad u weyn baan sii dareemay bay tiri. meeshaydii ayaan isku celiyay bay tiri kursigeedii bay isku sii tiirisay waqtiga iskaga qaadatay iskaga hinraagtay awal waxay rabtay inay dee qof la socdo oo xanuunsan oo ma garanaysaa garabka inuu maaragtay ay ku yara taagsato darbi ay ku taagsato ay ka dhigatay rabtay laakiin way noqon weyday mana uusan u garaabin. sidii meeshii wax la fadhiyaba dhakhtarkii ayaa loo galay daawooyin iyo baaritaano iyo hawlshii adiga ay dhakhtarka ka rabeen markii loo soo dhameeyay ayaa waxay tiri haddana sidii oo kale lugtii kusoo laabanay. lugtii markaa kusoo laabanay waa aragteen dee qof caafimaad qabiyo qof jiran isku mid maahan. wuu sii ordaayaa sidiibuu uga dhaqaajiyay muddu ka horeeya 20-30 tilaabo iga sii go-an yahay iga sii horeeyaa bay tiri. marka ayuu waliba wuxuu leeyahay bay tiri intaa iga muusan harin habraha waayeeladaaba kaa dheereeya saasay habraha waayeeladaaba u dhaqaajinayaan oo u dheeraynayaan oo horey ugu ordaayaan adiga maxaa la tartiib soconaysaa si fiican usoo dhaqaaqo si fiican usoo soco. run ahaantii waxay tiri aad bay ereyadaas markay dhagahayga kusoo dhacayeen aan u dareemayay murugo iyo qalbi jab dhexda ayaan kusii matagayay bay tiri oo mataga ayaan banaankaas kusii matagayay oon kusii shubayay oo ma aanan ahayn qof caafimaad qaba oo xaaladiisu ay toosan tahay. intaa markii xaaladdu ay marayso ay gurigeedii isaga laabatay meesheedii ayay ku jirtay dhibaatadii bartii ayay ka bilaabatay dhaqaale ma haysato. runtii iyadu waxay tiri waa niyad jabay oo maba weydiisto waxba asaguna waxba ima garto meesha cunto ayuu soo buuxiyaa oo cunto ayaa guriga ka buuxda cuntuu keenaya laakiin cunto qofkii caafimaad qaba ayaa cunay tiri. cid iyo ciirsiga ehelaan asaga ahayna melihii asagiina 2 qof oo darisa ayaa nahay oo 2 qol oo iska soo horjeeda degan. halkaa markii ay xaaladeedu marayso ayay waxay go'aansatay in ay bal iska laabato waqtigii tigidkeeda la gaaray sidii ayayna ku safartay oo ay ku laabatay wadankii ay ka timidna ay ugu laabatay oo ay safar dheer iyo Mareykan mar labaad ugu hayaantay. halkaa markii ay jiradeedii iyo waqtigii walaceeda ka haray ay ku dhamaysatay waxay tiri markii aan tagay waxaan ku ballanay bay tiri marka aan umulaya hadduu ilaahay idmo inuu ii yimaado si uu garabkayga u joogo si uu ma garanaysaa ilmihiisa qofka uu hor arka uu u noqdo aan ma garanaysaa dee isbitaalka maadaama aniga aan qof keligiis meesha joogay ahay familkaygina aysan joogin oo ila jooga ayaan ku ballanay sidaasna waa hagaag iyo warsan iyo sida ayaan isku ognahay ayaan isku ogeyn laakiin markii aan tagay baa xiriirka ayuu ii jaray bay tiri oo wuxuuba lahaa ilaahow kaawad ha ahaatee waa kaasoo sheeko dhaafay ama waa idinka soo sheeko dhaafay. maalintii ay baxaysay waxay tiri markii aan baxayay oon guriga ka anbabaxayay way anbabixiyay bay tiri guriga intii aan taksiga sugaynay. cajiib meeshan waa meesha aan la yaabay. waxay tiri intii aan taksiga sugaynay oo taksigu uu imaanayay markaan guriga kasoo deganay oo hoos dee guryaha waa aragteen hool weyn oo gudaha baa jira oo ma garanaysaa albaabka hore laga soo galaya intii aan halkaa sugaynay dadka soo galaya guriga
oo hiiska qaadanaya ama wiishka qaadanaya yacni ninkaas in la igu ag arko aad ayuu u dhibsanayay bay tiri wuu iga fogaanayay ilaman uusan hadlayn oo wuxuu iska dhigaya qof iskiis asaguna meesha u taagan aniguna aan ahay qof meesha iski u taagan laba qof oo yacni isla socota inaan nahay in la ogaado ayuu diidayay bay tiri oo sidaa ayuuba isaga ka ilaalinayay hadal iyo sheekaysi iyo laba qof oo family oo maanta kala tagayso oo isa sii xog wareysanayso oo waan ku xiisi doonaa iyo nabad Allah igu soo kaacisho isdhahaysana warkeedaba iska daa waa cajiib anigu waa la yaabay qisadan runtii adinkana waad la yaabi doontaan waxay tiri kaaga sii daranay waan baxnay oo aeroboortkii ayaan tagin waxa ay sugaysay ama adiguba aad sugi lahayd gabarey ama wiilow hadday xaska uu ka tagayso ama qof walbo damiir leh oo qofkiisa uu ka tagay ama qof familkiisa ka tagay xataa qofka saaxiibka iyo qaraabada markuu ka tagay de qof walba markii uu aeroboortka geeyo qofkii uu jecel yahay uu sagoontinayo wuxuu jecel yahay in la isoo macsalaameeyo farxad lagu soo kala laabto oo xabadka la isgeliyo